weligeen ma maqasheen maxkamad loo dhisay oo loo sameeyey oo qaadi kala xukumay laba qof oo isku haysta shaygan adaa leh iyo adaa leh ma maqasheen maxaakimta adduunkoo dhan waxay u dhisan yihiin inay kala fasliyaan oo kala saaraan laba qof oo isku haysta arrin tanoo kale la isku haystaa biyaha baa la isku haystaa mid wuxuu leeyahay anaa leh midna muxuu leeyahay malihida anaa leh marka qaadi baa imanayo oo arrintii baadhayo oo waxaa nihayadii noqonaysaa inuu mid u xukumo kan kalena uu yidhaah iska tag waxaad leedahay ma jiraan maxkamad kasta arrintaas ay u dhisan tahay arrintu say doontaba ha noqoto ama taa ha noqoto ama xuquuq maaliya ha noqoto ama cirda ha noqoto ama waxay doonta ha noqoto waxay doontaba ha noqoto ama damhan laakiin waa un laba isqabsaday xaqii lagu kala saaray lii hada lii wa hada lii nebigu min fawaa'id aliimaani wa hamaraatihi wuxuu noo sheegay laba nin inay isku qabsadeen shay uu mid walba leeyahay adigaa leh iyo adigaa leh oo arrintoodii ay maxkamad gaadhay fii xadiidin saxiix nin baa dhul lahaa dhulkii uu lahaa buu mid kale ka iibiyey kii dhulka iibsaday markuu bilaabay inuu dhulkii hagaajisto oo uu qodaalkii bilaabay ayuu wuxuu ka helay kanzi dahab ah kanzi waa kayd weyn weeye oo aad u fara badan weeye walaa rubamaa yasil ilaa aalaaf alkilogaramaat yani aad u badan weeye yani isagoo faqiiraho waxba aan ahayn oo dhul yar iska leh ayuu mar qura wuxuu fii luqati casrina isu bedelay milyoneer aad u fara badan hadduu qaato yani walaakin waa saaxibu iimaan marka iimaankiisii hamaratu iimaani maxay keentay inuu yidhaa maya alla ilahe dahabkan anigu malihiye ninkii dhulka lahaa ayaa iskale waa soo qaaday jaratu dahabkii isagoo wada ayuu ninkii dhulka uu ka iibsaday buu u keenay wuxuu yidhi fulaanow dhulkii aan kaa iibsaday baan ka helay kanzigan dahabka qaadaadaa iska leh kiina waa saaxibu iimaan ma odhan wallahi waa runtaa waa nin loobe anaa maaragtay waa mahadsan tahay ma odhanine wuxuu yidhi maya dahabkan aad sheegayso haddaaba i kowa ma maqal mana ogeyn ana bictuka alarda wamaa fiiha inay dahab ku jiro in kalena ma ogeyna adaa lehe qaado war ma aha melihi anigu shaqana ku melihi adaa lehe qaado labadii nin waa isqabsadeen haadaa lak wa haadaa lak isqabsashadoodii waxay gaadhay maxkamad lanna nebiga saasuu ka tacbiiriyay wuxuu yihi fataxaakamaa taxaakama maxaa waaye ma hiya maa taxaakama maxkamaday aadeen wey maxkamaddu geed hoostiis bay noqon kartaa maxkamaddu ninay u tageenana kale xukun dhahayn bay noqon kartaa nin bay u tageen ninkay u tageenna waa saaxibu iimaan ma odhan wallaahi arrintu hadday saas tahay dahabkan waa ma garanaysaa waa hanti qaran weeye iska socda idinku ma uusan orane qadiyadii buu dhegeystay horta nin walbaba qadiyadiis buu sheegay saas ahaa wuxuu yihi horta wax caruura ma leedihiin arrintiiba waa ka baxay inuu kala xukumo waa ka baxay wuxuu yihi wax caruura ma dhasheen haa anigu wiil baan dhalay adiguna gabar baan dhalay wiil baad dhashay adna gabar baa dhashay soo maaha alalehay gabadha iyo wiilkaa isu guuriyey dahabkaana ku nafaqeeya oo ku infaaqeeya waxna sadaqaysta wadhaba taga iska taga wax kale oo ku kala xukumuu garan waay fawaa'id uliimaan ma taha mise maaha maanta yaa saas yeeli lahaa yaa intuu kanzi dahaba helo ninkii uu dhulka ama guriga uu ka qaatay ama ka karaystay ula tegi lahaa odhan lahaa alaabtana kaa luntay qaado ilaa saaxibu iimaanin markuu dadku hadday iimaanka iyo fawaa'idiisa og yihiin jiil ka sacaado badnaa jiilkii saxaabada ma jirin radia allahu canhum sacaadada maxay ku heleen biliimaan hadda ogaada nebigu sala allahu alayh waalihi wasalam dardaarankiisu ma ahayn war dad yahow acmaashiinu waa laba ama ha wanaagsanaato ama ha xumaato acmaashiina xunxun qaaduuraadka iyo waxyaalaha kabaa'ir dunuub kan ku dhaca kii kuwa dembigaas weyn ee xad kale ku dhaca ii imow oo aan ku tahiro weligii lagama sheegin nebiga mana odhan ee wuxuu yidhi hayse asturo
ها استغفار ولا يستغفر فليستتر ولا يستغفر ربه ربي دم بداف هو يديستو هاي استأستره لكن ما حد عجرتي وحد عجرتين أمناك صحابية قوة الإيمان مش أقاري فيه قوة الإيمان ضعف البشرية وخلق الإنسان ضعيفا إلهي وخلق الإنسان ضعيفا آية داس وحيت من في باب الشهوات والله يريد أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أوردت في مقام الشهوات مركا إنسان بني آدم وهو مسكين يقع في هذا صحابي تمر ابنية أي قبر ولا أقول حسناتي شيطان كبا ويمن وسوس له والله تمر أنت كفي عم بقودها كجرة قوده مركو قبر دي بكبود اتق الله ولكن قوة الإيمان مركي بوركي مركي إيمان كيربع مركي سو أردها سمردعين استغفار ياكو فلان إنه استغفار ميل شعر سو أوي أبو بكر بقول لك وحكى لم يهجر أنا نكشي واحد ما أنت استغفار اسكا أسره ميل إلى النبي قوته عليه الصلاة والسلام وأمرك يسود دقيسو وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أو إنك سواشي ويدي وانقا وادمق شيء أيضا سئلت يا رسول الله ألي خاصة ما ناس كلا كلي ما هي لأمتي كلها إن الحسنات يذهبن السيئات كوي كلوات مقشين يعني يقول حدك قلي نن هات المرأة من جهينة قصتها مشهورة نبقى يوتمي دور قور ونبي وكجد سدي مركي دنبه أو أيدي اسكو قرتي أو يتري يا رسول الله أنا حبلى من الزنا وحابا أور أو زنابا وضابا واحد يعني كرتماه نبي قد مركا وكو غصبينها إنه حكمك إلهي تنفيذي والله إنه سنجع عليه نبي صلى الله عليه وسلم مرنبك وما فرح سنين ما نجع علي حتى واحد عدين رجمي اللي حكمي وسيدي لو رجمي انتو عرري أي أصحابتي أنت كذبة تجين أو أي دلين ويرم حق سجدين ويدين هدول ذيك عرّي ورني جماعة سجدين ويد قبلنا مركب أنت الحين لقبت وزنزانة الوقوف إعدام بيكو حكومتها هلكها الوحي هل إلى اليوم ما كل جيل هاش كتكتو والله هدينا سون نقول إن الله قدبة تجين أو أسكر دبتك تا أي سنجري أو وح متابعين يا شيء إيه هذا إسكت وسون نقط إيمانك أنتو الليك مركب علمه دشين هذا نواعلي سون نوجي سعلي لما جير مركو أها أو وليبا أي كسرة يابس أي سيسي كسرة أي سيسي يعني حبد خبزي روتي أي سيسي أو أي كتوسين يسو إنه سنعانه هذا أباهنين كذب بحكمه إلهي لقو تنفيذه فكان رسول الله رحيما صلوات الله وسلامه عليه هذا هو ثمار الإيمان قفكو إنه آخرة أي لويناته وعذاب الآخرة مركا سؤال بالش ويدين كرا كبرنا نوعا سمحكو كل فعلتهم مين اوغين هدي استغفار لا تمادو او وصيه النبي انت قادته او اسك استغفارته او اس استرته او اسك جوجتو waxa dhibaato ku dhixi lahaa ma ya ribba jirta muhiima waa maxay tawbada iyo istighfaarka waa min caalam al-ghayb adoo tawba keenti istighfaarna waa la timid wacdigi ilaahay iyo ballantiisi way jirtaa inuu ilaahay adoonkiisa uu tawbadiisa aqbalayo laakiin wax cadaana ma haysid عدين ما هي شديد لكن هدي حد كلجوجو أوفيو فهذا كفافك هذا قصاصك وحكى الآخر اللي قام مركا يدو حيلا الرنتيدو انت شك نقول لحد توبة يدون انت خلل انتو قالوا هدو اين أصح لها هنا وحون دي بشر بانا هاي وحان اوغا هاي وعد او انار جهنم انك قبت بادا يليا تاساكو كلفيش هذا هو ثمار الإيمان ذاتكو هدي اوغيهين في الدنيا إيمانك وحان هاي المقاتل والله سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هو الإيمان إيمانكم أسرة إيا قويسك وحي كل إيمانان وأي سعادك هلوا بالإيمان هدي إيمان لقهلو مدو البابا ننكي إيا ناكتي إسقبي مدو البابا ميلكالو كعب سدو ليه وحقيسة وتنازله
isagoo arkaya raqbatan fi llaahi buu leeyahay. ilmaha iyo tarbiyadooda waxay ku tarbiyeeyaan iyo meelay ku xidhaan bay leeyihiin. falaysa mila aliimaani shay, iimaanka wax lamida male. iimaankaaseen ku kobcin lahayn oon ku dadaali lahayn. himaaru liimaan haddii adduunyada laga hadlo lama koobi karo, laa xadda laha walaa xasra. laakiin thawaabka iyo miraha iimaanka laga helayo fi dunya waa shay basiita markii loo bardhigo waxaad aakhiro ka helaysid. aakhiro iimaanka waxaad ka helaysaa allahu akbar. kelimad subxaan allah sow sahal ma aha, bal ku dhawaaqa subxaan allah. ma tirahan subxaan allah sheekh, ma tiri adigu subxaan allah. quluu subxaan allah. idinka ajir baa heshaan, anigana ajir baan helay. man dalla calaa khayrin fahuwa ka faacili in sha allah. allah yarzuqna waiyaakum. ku soo dhowow dugsiga Maka online ee barashada qur'aanka iyo axaadiista nebiga adoo jooga gurigaaga ama goobtaada ganacsi. waxaa kugu diyaara macallimiin khibrad iyo waayo aragnimo u leh barista qur'aanka iyo culumta shareecada. haddaba waxaad ku baran doontaa dugsiga barashada qur'aanka iyo tajwiidka, barashada higaada, barashada luuqadda carabiga, barashada tafsiirka, barashada axaadiista nebiga. is-qoristu way socotaa, waxaana la qaadanayaa arday cusub. fadlan hore u gaadh, nagala soo xidhiidh lambarada shaashada kaga muuqda.